السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabtayda sharafta badan ee halkaan igala xiriiray. Waxaan jeclahay inaan marka koobaad idinka codsado inaad qanaadkayga ii subscribe gareysaan oo iigu soo xidhantaan dad badan inay iigu soo xidhmaan baan doonayaa insha Allah. Waxaan doonayaa inaan ka gaadho riyadeydii ahayd inaan noqdo warbaahiye baraarujiye caafimaad. Wariyaan jeclaan jiray inaan noqdo laakiin maaha dhinaca siyaasadda, xagga caafimaadkan ka bilaabay. welina waan jeclahay inaan xagga caafimaadka ka noqdo baraarujiye caafimaad, health promotion-kaygii soo celiyo iyo xirfadahaygii hore. waxaan dabcan waxaan ku darsanayaa toosinta iyo tilmaamaha iyo ka dagaalanka ku tacadiga haweenka Soomaaliyeed, hablaha quruxda badan ee Soomaaliyeed aad ka u jeclahay ku tacadiga lagu hayo iyo dulmigooda waan ka dagaalamaya. intii igu nacaysa waxaan leeyahay inta igu jecel baa idinka badan, waan idin salaamaya, halkiina ku mahadsantiin. maanta waxaan rabaa inaan sir dul taago arrin in badan maaragtay maskaxdayda ka go'aysa oo ah mujtamaceenu maadaama uu yahay mujtamac inta badan hadla oo aan wax akhriyin, waxa ka dadan oo ka daxsoon waxyaabo ay ahayd inuu inanka standard 7ka ahi garto, maaha professor iyo dhakhtar iyo inay gartaan. waxay ahayd inay maskaxiyan gartaan inankas qof kasta wax akhri kara, laana meel walba iyaga oo qoran bay yaalaan, internetkay ku jiraan macluumaadkoodu meel walba way yaalaan, waa laga helayaa buug kastay ku qoran yihiin. waxa ka mid ah waxyaabaha mujtamaca imika in dhalmada hablaha badan lagu haysto, hablaha Soomaaliyeed lagu haysto gabadhii habla badan dhasha la oranayo fur ama la guurso. waxa mujtamaca ka dadan oo ka daxsoon in isu taga dhinaca jinsiga ee labka iyo dhadigu marka ay isu tagaan inay jeen ahaan gabadhu ay sita laba xaraf oo isku nooca, ninkuna uu sita laba xaraf oo wato dareerihiisa yar ugu jiraan laba xaraf oo ah xarafka maaragtay laba xaraf oo kala duwan. maaragtay ukunta iyo maxalkan dareeraha aabaha waxa la yiraahdaa sperm baa lagu yiraahdaa afka qalaad. af Soomaali waxa lagu yiraahdaa garam biya lagu dhahaa Soomaa. wuxuu sitaa laba xaraf oo kala duwan oo xarafka af Soomaaliga lagu yiraahdaa xa iyo xarafka af Soomaaliga lagu yiraahdaa ya. ana af Soomaaliga ku sharaxoon isku dayayaa bal. gabadhu waxay sitaa laba xaraf oo xa labaduba ah xx, ninkuna wuxuu sitaa xy. sidaa daraadeed maamadu iyadu markasta waxay soo bandhigtaa xarafka x. ilmuhuna jiinkiisu wuxuu ku xidhan yahay aabaha wuxuu soo bandhigo. mar walba go'aanka waxa iskale ninka. go'aanka xagga ilmahaas jinsiga uu noqonayo hadduu noqonayo wiil iyo hadduu noqonayo gabadhba wuxuu ku xidhan yahay waxa la socda biyaha aabaha, ma waxa uu ganay waxa uu soo waxa weeye wiil ma y ba mise waa x. haddii ay gabadhu x bay hore u sii dhigtay halkaasi diyaar ahaa xarafka iyo xarafka xa baan ka wadaa. haddii ka uu ninku keenaa uu yahay isna xa waxa dhalanaysa gabadha oo laba xa ama laba x, haddii x isku beegmaan inan baa dhalanaysa. haddii ay hadduu soo diro isagu xarafka ya oo ay xarafka ya iyo xarafka x ama xarafka xa isku beegmaan waxay noqonaysaa inan ama wiil. marka go'aankaasi hablaha waxa dhalaya haddii ninku uu dhalayo mar walba gabadhu dhalaysa inan, macnaheedu waxa weeye ninka ayaa wata jiinka maaragtay gabadha oo kale wuxuuna soo spamka uu soo gaadhsiinayo. spamku waa noole, biyaha raggu waa nooleyaal socdo saa marka loo gano sida soconaya. marka waxay kuwaasi wuxuu soo daynaya ama soo tuuraya mar walba x sida haweeneyda oo kale. sidaas daraadeed bay habla ku dhalanayaan. gabadhu iyadu wixii ugu soo dhiibtun bay u dhalaysaa. hadduu x usoo tuuro inan bay u dhalaysaa waa iyada x sii siday, hadduu y usoo tuuro inan bay u dhalaysaa waa iyada x sii waday. marka laga tago cilmigu wuxuu halkaa dhigay ee uu yidhi scientifically cilmiga ilmo bini aadan ay kala dhaxleen gaal iyo islaamba isu soo maaragtay qarniga badan. markuu sidaa leeyahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala jalla wacala wuxuu yidhi qaarkiina gabdhaan siiya, qaarkiina inamo, qaarkiina waxba ma siiyo, qaarkiina waan isugu daraa. marka Soomaali Maxamed indha adayg labadaba intay dafraan yaa tan diinta suuban iyo tan cilmiga caafimaadka labadaba intay dafraan bay gabadha ku haystaan qasam maxay wiil lagu dhaliyo. wariyaa rabbi shaqo kule yaa aad baan idin jeclahay. waxaan idin ballan qaadayaa TV videoyadaydu inay noqdaan kuwa cilmina leh oo wax idin faa'iideeya aadna u kooban. waan idin jeclahay. subscribe iyo saara soo dhawaada. laydin sheegin akhriya meel walba ay ku qorantahay internetka bugaagta caafimaadka wax meel walba ay ku jirtaa. gabadhu shaqo kuma laha jinsiga ilmaha dhalanaya.